الله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلهي بأمهان سبحانه وتعالى ولا ليال وحينو هل كان جعل الله أنا يقصو بيور بحنك وأنا كصابسا سفر كي إصلاح ضدك قبائل ولا لها دبعتدو كسر نقطي لو أنا دلكو دحمري لنا عاكم فراد مقالة أسعارات علوماتي واتي أي يقضياشي يوحجرت وأي شركة قبتين صبح ثلاثة تاريخ هيد لحية طبعا بيشا ديسمبر لبدا كنا فريق طبعا مقالة الأسعارات يكون قبتين باقنا بدينا أي صوص صارين كدبنا إسلام معلنتي ظهر كمرك اللي تكدي جدي أيا كهم ببحي مقالة الأسعارات بلومو يقضيال يوحجرت كلي سويتشرة oo saaray in ay arinta dhigjoojin ka sameeyaan dadkii walaalaha ay dhibaatadu dhex martay oo horena xalkeeda loo sugayay madal iyo gogol hore ay jirtay oo la qabtay magaalada Saaxdheer 25ka bisha December lagu balansanaa dhibaatadii ka hor dhacday ama ka hormartay dhawaan labada qolo ay dadka iska dileen sida xaq darrada ah ee aan aqliga iyo sharciga iyo xigmadda waafaqsanayn dhibaatadaasina u dhacday in arrintu aysan baahin oo laga hortago wacyigelin la sameeyo xaaladda la soo qiimeeyo oo halka lagu xakameeyo yaa guddigaas loo saaray ilaahay fadligiis hawlihii aanu meesha u tagnay ujeedadii aanu u tagnay waanu ku soo guulaysanay waanu odhan karnaa wax sida muuqata dhulkii dhibaatadu saameynta ku lahayd waxaanu ka bilownay duhurkii maalintii talaadada 16 bisha magaalada Kalabayd oo aanu la kulanay si wanaag odayaashii iyo waxgaradka oo shirsan oo arinta laftigeeda ka shirsan kelmado waana iyo wacdi kadib waxaan u jeedinay baaq nabadeed iyo nabadda inay adkeeyaan wax dambe dhicin wayna naga aqbaleen si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen waanu ka tagnay galabtii waxaanu gaadhnay tuulada Dabataag halkaas oo aanu la kulanay beelihii qaarkood oo aad يعني مارتي isugu yimid oo shirsan wacdi ku saabsan arrimaha dhiiga qofka muslimka ah iyo xaraannimadiisa kadib waxaanu sidoo kale u bandhignay inay nabadda qaataan inay xabadda joojiyaan dhibka la joojiyo in dhiiga halka lagu joojiyo ilaahay laga baqo loona diyaar garoobo wada hadal iyo wada xaajood way si wanaagsan bayna sidaas oo kale nooga aqbaleen waxaanu tagnay Saaxdheer baan habeenkii ku hoyanay garaadka iyo isma kale iyo odayaal wala kulanay masaajidka waanu ka hadalnay subaxdii iyo habeenkiiba iyana sidoo kale aad bay noogu soo dhaweeyeen inay diyaar u yihiin nabadaas iyo gogashaana ay diyaar u yihiin magaaladaas si fiican inay ugu abaabulaan labada qolana la isu keeno waxa ay kala tabanayaan la dhameeyo bay noo sheegeen waanu ka tagnay waxaan u gudubnay dharkayn baan u gudubnay masaajidkan kelmad caam umada kala hadalnay waxyaabihi aan soo qabanay meesha hawshu marayso iyo wacdiba xaqalo la kulanay waxgaradka isimada odayaasha uqaasha inta ugu sarreysay ee maamulka ee dhaqanka u sarreysaan si gaar ah la kulanay arrimihan u soconay ma u sheegnay way nala qaateen waxaanu nabi dhumay anabeen hore aan ku hooyanay ilaa shalay galab casar liiqi ilaa casarkii aanu joognay wacdi masaajidka beelaha meesha wada dog walaalaha ah aanu qolo walba gaar ula shiray waaninay wacdinay nabadaynay qaataan way naga aqbaleen soo dhaweeyeen galabtii waxaanu soo maray casarkii laba kaam oo ka sokeeya dhumay oo u dhaxeeya laascaanood iyo dhumay ceeljeex iyo gobdheere iyana la wada degan yahay anagoo ku amaanayna dadkii meelaha wada degan joogay oo dhan si walaalnimo ah ehelnimo ah waxgaradnimo ah inay hawsha gacanta ugu hayeen iska ilaalinayeen dhexdooda in dhib kala gaadho waxyaabaha dibadda uga imanayay iyo waxyaabaha la sheegayo iyo dadka fidna abuurka aan si wada jiray isaga ilaalinayeen waanu labada kaabna waanu soo maray isugeyn meelahaanu soo maray oo mashruucaas wacyigelinta iyo nabadaynta iyo xakamaynta aanu kala hadalay oo nawaafaqay waa ilaa 7 meelood weeye waxaanu rajaynaynaa gogashaas iyo madashaas sidii loogu talagalay inuu dhacdo si wanaagsan hufan loo abaabulo cid waliba cid ay ku qanacsan tahay inay xaajada u gasho
laga ilaaliyo turxaanta iyo xasaasiyaadka iyo waxyaabaha kicin kara xasaasiyad dambe wixii hore ee dhacay in laga gudbo wada xaajood iyo garnaqsi shareecada waafaqsan intii wax goyn karto ay ka qayb galayaan